kulankan oo ah mid lagu magacaabayay golaha wasiirada ee uu yeelan doono maamul goboleedka Jubaland State isla markaasna ay ka soo qayb galeen jaaliyada Jubaland ee ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay munaasabadan Suldaan Siciid Bashiir iyo Suldaan Cabdiraxmaan beelaha Jubbooyinka degan kulli wasiirada waa ku jiraan qaar yar baa hadda la magacaabaya cidii iska wayso yay xumaanin intaas kadib waxa uu ahnaqayaa madaxweynihii hore oo Jubaland injineer Cabdiqaadir Maxamuud Yuusuf oo nala fadhiyay galabta waa mahadsan yahay sidoo kale waxa munaasabadan ka hadlay Dr. Maxamed Ciise oo kamid ah jaaliyada Jubaland ee ku dhaqan wadanka UK sababtu waxa waaye wax dhaqdhaqaaqa waxaan u jeedaa ururkan u jeedaa inuu diyaar u yahay sida u xoreyn lahaay dadkaas iyo dadka deegaanadaas degoo dhan marka hambalyo ayaan leeyahay madaxweynaha cusub oo la doortay sidoo kale madaxweynihii hore xilka Jubaland wareejiyay injineer Cabdiqaadir ayaa ka hadlay munaasabada bilana qaad waxtaraysa Soomaaliya ayaan kaga soo tagnay marka magaca Jubaland marnaba raalli kama noqonayno in lagu macnaha in lagu bariyo doonto sorry marnaba raalli kama noqonayno waxaan ka codsanayaa walaalaha isku dayay inay magaca isticmaalaan inay ka waantoomaan ay arintaas ay tahay arin qalada oo aan la qaadan karin gabagabadii kulankan ayaa waxa ka hadlay madaxweynaha Jubaland State isla markaasna soo magacaabay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada isagoona tacsi u diray madaxweyne Cabdilaahi Yuusuf wasiirka ugu horeeya waxa weeye wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka waxa weeye Cusmaan Maxamed Xasan waa nin ka tirsan deegaanka suldaankiisina wuu fadhiyaa wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Maxamed Sheekhuna Jaabir waxaan filayaa inuu fadhiyaan filayaa wasiirka warfaafinta Maxamed Yaasiin Xaaji wasiirka gaashaandhigga Khaliif Cabdulqaadir Gacamey wasiirka waxbarashada Axmed Cabdulqaadir Maxamed waxaan u magacaabay wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga ah isla markaasna ah la taliyaha madaxweynaha Cabdullaahi Cali Guure oo ku magac dheer afdheere wasiirka maaliyadda Jubaland State waxaan u magacaabay Muraaye Cumar Rooraaye waxa kale oo aan magacaabay wakiilka Jubaland UK Xuseen Macalin Isaaq waa mahadsantii waxaan tacsi Soomaaliyeed u dirayaa odagii Soomaaliyeed madaxweynihii hore Soomaaliya oo ku geeriyooday bisha 23keedii dalka isku taga Imaaraadka Ahmed Cabdiraxmaan Gonkaybar TV magaalada Nairobi